السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي كلا سعودة جنة الكيجا سجارة يا إذن سلامية سلامة إسلامكم يا إذنكم سلامية سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن فيليا دمانتين إن هاد وناكسنتين وضع عافمات قبتان إن معلمهان من wax program aan uga saabsan Soomaan gelin sababtana busy ga iska badan oo dareemi kartaan in fasaxeedii lagu jiraa maamo caruur ay u joogto time aan la heli karin inta badanba laakiin maanta waxaan doonayaa inaan balana ra'yi ka soo dhiibto arinta baraha bulshada hareysay oo meel walba la isdhex wado inanta yar oo muxuu ahaa hableena ama walaaleena ama caruurteena sida uga weyneen oo meel walba lagu soo share gareynayo oo xumaanteeda la baafinayo iyada horta marka hore isu geysatay laakiin anaga ma hubno inay tahay gabar caafimaad qabta oo maskaxiyan fayo inay tahay lama hubo in iyada la dhahay la judge gareeyo oo la yiraahdo ma iyada dhibta u geysatay kan sameysay fasahaada waxa la fasahaada kan intuu ka duubay isagana soo dhigay baraha bulshada oo intifaac ka raadinaya ama ceeb la doonayay gabar waxaasi way bateen oo hadda maalmahan dambe waxaad moodaa gabdhihii ceebtii xajinta la raadinayay in lagu intifaac doonto oo irsaaqad lagu doonto waxaan maqlayay rag leeyahay maxaa tii garooba inta waa 250 tii gabarana waa 600 bala wax sida ku haya marka waxa ayaan daraado muslim sheeganaya oo leh maxaa 100% muslim baan ahay diinta islaamka ku dhashay oo nikaaxeedan ku jooga caruuran ku dhalaa adigoo leh in maanta aad ka ganacsanayso maxaa gabdha maxaa Soomaaliyeed oo kula mid ah oo kugu jinsi oo kugu diina jirkooda inaad inta meelaha ku baahayso aad lacag ku raadsanayso iyagina aad kaga faa'iideysanayso gaajada heesaad kaga faa'iideysanayso waa ayaan daro mana aaminsani ani gabar Soomaaliyeed in lagu leeyahay lacagtaana ku siinayaa isu kayso duubo kadibna aan ku sii share gareynay inay gabar yeelaysa ilaa ma aha laakiin waa on la qiyaamiyay waa la dagay si waan ku jecelahay kana ahay inta ahay status iyo muxuu ah ani farahayga kama baxay ana ahaynay waan ku ilaalinayaa inta la yiraahdo hablaha lagu laga qaataa ku miskiimiinta oo aan aqli badan oo saa ugu filan lahayn ama waalan ama wareersan ayaa sida looga qaataa qof maskaxdeeda ay shaqeynayso ma yeelayso jirkaada duub oo ii soo dir ana ku ilaalinay oo jirkaada adii inaad ilaashato hadaad sameyn weydo oo jirkaada adigu ilaashan weyso xafidan weyso ma nin baa ku xafidi intaad u duubto aad u dirto ku soo dhigi maay qofku tusin maay walaalka iyo waalidkan ka ilaalin mobilka meel hoosan ku gelin iyo waa lagu yaqaan rag waxay ka hadlaan qodheena anigan hadda inta ka hadlaya boqolaal isku daydaa inay soo qorto waxa suuq ku soo qorto markaas aan blog dawada geliya waa dhaqan ay ragaliin maxaad xiran tahay maxaad qabtaa iyo maxaa kuugu jira iyo kula joogay sida inay waligood ku yaqaaneen inay luqad kuugu soo qoraan waa abood la gub inta badan maanta luqad adiga adeegsanayaan oo maadaama aan galbeed iyo waqooyi meel walba wax ay galeen aan Soomaali ma sha Allah ka dhashay dad waaweyn aan ka dhashay gabasha ma aqaani hada la gabada uga la gub waa inaan iraahdo normal ay la tahay marka insha Allah ta'ala ragga Soomaaliyeed waxay dumarka ku wadaan in I hope inay one day ka deen doonaan oo inay hooyadood tahay walaashood tahay gabartooda tahay guursan doonaan habaryartood tahay iyadoo tahay ay ogaan doonaan one day hadda dad aan ogeynaa batay oo habli ismay jaran stanta ya ku taal kan baa ku taal beer bay tahay kan iyagu miyaan bisqin lahayn oo baqti lahayn oo wax kala wada laalaadin markay gabar yar oo miskiin oo wareertay aan aaminsanahay inay wax ka siiin maskaxdeeda ay meel walba geeyna beer bayaan kan bayaan ku hayaan wareedinku wada beeraatiina waana la soo bandhigina gabadha amaan siiya muxuu ahaa iyadana Allah soo hanuuniyo aday xanuunsantana Allah caafiyo in dumarkan aan soo jeedsanaya iyagana gabadhaas ay ku wirsanayo meel walba geynaya qof walaalkiisa ceebtiisa xafida isna Ilaahay intaas oo ceeboodu wax xafida oo ilaaliya marka ceebteena Allah asturo dadka walaalaha la daayo wallahi waxaan luqyada nalagu soo wada diray hadaan soo wada fasaxi lahayn dad badan ayaa bilaa nin badan oo maanta ama imaam isku sheegay ama sheekh isku sheegay ama wariye caan isku sheegay ama dhakhtar isku sheegay ama macallin dugsi isku sheegay ceeboobi laha marka dumarka waa in dhamaantood waa la wada mid saas u wada xifidaan iyagoo eegay wajigooda walaalahooda diintooda damiirtooda iyaga ay soo share gareyneen laakiin raggi way ilaabeen damiirtoodii wanaagoodii way ilaabeen inta waxay wadaan ceebaha dumarka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inay fahmaan raggan taraaglayaasha laga sheeganayna walaalayaal waad shaqaysataan taraag buu Ilaahay idin saaray taraagga maxaad u saarantiina dumarka aad inta lacag yar ku dagtaan aad cawradooda sii ibsataan oo sida dhaqaale ku raadisaan Ilaahay idin ololin dhaqaale ka helimeysaan dad waxa sameeynaysan gurigiina ka soo bixi meel walba ka soo bixi dhibaatada idinka idin dambeynaysa because
waxa aad raadinaysaan haddaad kasab xalaala aadan ku raadinado xaaraan ka beec mushtartaan ilaahay dhaqaalihiina adduun iyo aqrab waad hoogeysaan dhaqaalihiina ilaahay siyaadin maayo ubadkiinana wada fasahaadayna aad ku wada dambeynaysaan marka Soomaaliya ilaahay ha laga baqo fasahaada hala joojiyo dumarka ammaan hala siiyo hablo yar hablayaho idinkana yaryar oo isduubaya hadalka xataa kama kale helaya wallaahi alcadiim waxaan ugu wacan 24/7 habla ayaa la soo shargareynayaa dhammaanteen isku mid ahna korbilaseedka bad isma dheero isku wada midaynu nahay wax aan kala bedelanahay ma jirto gabar Soomaaliyeed in maalin kasta nalagu horwarwaro meelaha lagu keenkeeno la yiraahdo balayaga la yiraahdo damiirteena nama siinayso hablo is astura ilaahay ka xishooda ilaahay ka baqa diinta islaamka qawiyeeya hoostiina ninkii yiraahdo hoostaada ii soo duubo ii soo dir war hooyada ayayda ii soo dir ku dhig walaasha ii soo dir gabadhaada ii soo dir hooyada ii soo dir aad u taado aan waxba la saarin ii soo dir ku dhig inta markuu hooyadii kuu soo dhigo oo awgiis iyo ayaydiis kuu soo dhigo kadib markaas la hadal adoon una duubayn kana safe garee dibna u soo shargaray aabi la gubka kaas bina aadan ma ahane insha Allah ta'ala intaas ku soo gaabsanaya khayr badan aan idin rajaynayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh